waxa la yiri adduunyada nin waxa aragtay ku laaban kulleeyde markaad nooshahay in badan kolba wax baad arkaysaa ka yaabiyo magaalada Hargeysa waxa saacadihii la soo dhaafay si xoog looga hadalhayay ay qiimihiisa dad kale ay ku sheegeen inuu yahay $10,000 kaasi oo loo xidhay dirawalka waday gaadhiga jiiday aygaasi haddaba dirawalka arintani ku dhacday oo markii ugu horeysay hadlay ayaa telefishinka Saab uga waramay dareenkiisa ku aadan arintani magacaygu Axmed Nuur Cabdiraxmaan Maxamed waxaana wataa dhaynahan waxaana baxaa degmada Saboonaag gaar ahaan ka tirsan magaalada Leeyahay Badalwanaag habeenada kamid ah ayaa aniga suuqa maraya magaalada oo ka soo baxaya oo maraya halka baar waraabay ay qisadani ku dhacday ka abaara steedii la barkii waxay ku soo baxay ay isiriyaysa ayaan ka soo baxay halka wadada dhexdeeda marka qaar muduuhan qaar cad siigiigu kiciyeen waan istaagay baabuur badan baan waana dhaafay kadib waan iska socday in yar markaan socday ayaa xagga dambe ay iga soo galay bahalkii mid madow rooraya kadib waxaan maqlay cibaan maqlay gaari uu ka soo go'ay deetana waan jeera kadib xagga dambe ayuu ka dhaawacay markaan isri wadadii baarkan uga baxay ayaa kadib waxay qabsaday dhalinyar badan oo xaafadda agtagtay bahalka halkii waan isku qabsanay waxay u lahaadeen halkan joog bahal baad jiidhe deetana kadib halkii markii xoogaa muran badan ka dhashay dhalinyartiis qabsanay cid weyn oo bahalkii qof weyn aan ka dhaxarki waayay halkii baan adigu isku qabsanay alaab badan gaariga way saarad bagaash marka kadib uu yimid ninkii bahalka lahaa kadib markii waan is qabsanay uu yiri bahal baad halkan igu jiidhe kale soo ayaan ku dhigay anigu ay macno garan maaye ay baad jiidhe markii halkii xoogaa isku haysanay ina mar xira traffic sharcigaas ayna kala saaray xira traffic kadib waan israacnay oo aniga dalbaday inaan xira traffic tagno oo aan wixii uu bahalkaasi noqdo anu waxaan garan maayo ay macnihiisa ina mar aan ku xira traffic dalbaday markii lagu geeyay xira traffic ciidamadii sidee ku qaabileen sideena qaab nuuciya lagu sheegay dambigaadii maxaa halka ka dhacay halka waxa ka dhacay markii aan xira traffic tagnay adigu isaguna wuxuu yiri bahalkaas iga jiiray bahalkaas waa bahal qaaliya oo aan dibadda ka keenay markaa aniguna rayigaygii anigu ay ahaan baan arkayo bahalka anigu aygiisan ma garanaynin kadib halkii markii habeen goor dambana waa ahayd abaara ilaa 8 barkii baa ahayd oo bigi markii nala kala qoray uu yiri ninkan halay xiro subax ayaa la isku iman doonaa halkii ayaan gaariga ku xareeyay intaad ku xidhnayd halka imse cisha halka ku xidhnayd halka waxaan ku xidhnaa 5 cishaan ku xidhnaa imika kadib markii aad halkaasi 5 cisho ku xidhnayd laguna sheegay inaad aygan u xidhan tahay dareenkaagu sidoo noqday in ay lagu xidhay oo lagu haystay inaad ayga jeeday waliba aad muddadaas ay ku xidhnaato dareenkaagu sidoo noqday wallahi dareenkaygu aad iyo aad ayaan horta ula yaabana markaad dhinac eegto bulshada reer Soomaaliland hadaan nahay horta meel kasta oo tago waxay noqotay wax la yaab leh oo aan hore loo arag dareenkayga markii dambe waxay noqotay wixii markii si aga waxyaabahan caalamku ma ku maqli jirnay ay baa la dhaqaa ama xuquuq leh xira traffic markii aan joognay cid waliba waa la yaabtay waxaan hore loo arag bay noqotay meel kasta macaaki xafiisyadii iyo markii waxaan hore u dhaceen cid walba waan su'aalay war waxaan wax hore u dhacay ma yihiin ma ay yiraahdeen xitaa maxaabiistii la xirnay iyaga waan waraystay mid waliba way la yaabay ugu dambeynna waxaa weydiiyay dirawalka inuu bixiyay lacagtii laga doonayay ee qiimaha ayga waxaanu ii sheegay in gebi ahaanba laga cafiyay lacagtaasi isla maantana loo sii daayay gaadhigiisa oo in muddo ka xanibnaa waxa ka xaalay intii aan xidhnaa odayaashu si wanaagsan iskaga arkay si wanaag baan ku dhamaatay maanta ayaana la soo daayay alxamdulillah rabbil caalamiin wallahi si wanaagsan ku dhamaatay gaarigayga maanta ayaan dib helay oo xira traffic kala soo baxay waxa la yiri adduunyada nin nool maxaa aragtay ku laaban kulleeyde markaad nooshahay in badan kolba wax baad arkaysaa ka yaabiyo tani waxay noqotay dhacdadii iigu horeysay ee ugu la yaabka badan leh xamse gelle telefishinka Saab ku dhameeyay lacagta wala lacagta ayda malidii
mahadsantahay walaalaha. hayo laabana sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad maxmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel shirkadda dadweynaha